beer ha la ogaado Soomaalidu waxay tiraahdaa adduunyo janaale iyo jawhar ka joog aakhirana janna ka joog ayagoo ula jeeda quruxda iyo dalagyada kala duwan ee dhulbeereedka Soomaaliyeed ka bixi kara laakiin tan iyo markii 2008 dhaqaalaha adduunka hoos u dhacay ayaa sababtay in sicir barar ku dhaco cunnada loo dhoofiyo dunida taasna waxay damac weyn gelisay wadamada soo dhoofsada cunnada sida dalalka khaliijka carabta iyo shirkadaha caalamiga ah ee beeraha ka ganacsada kuwaasoo bilaabay inay ka ijaartaan ama la wareegaan dhulbeereedyada dalalka saboolka ah ee ku yaal qaaradda Afrika, Aasiya iyo Latin America tanna waxay sababtay in beeraley badan oo isku filnaa laga barakiciyo dhulalkoodii iyo kacdoon isdaba joog ah tusaale ahaan kacdoonkii Oromada ee dalka Itoobiya markii dagaankoodii Gambeela laga barakiciyay iyo tan maanta oo dalka Indiya ka taaganba marka walaalayaal waxa nagu waajib ah inaan ka barano khaladaadka dalalka dariska ay galeen aan daryeelno difaacnana dhulbeereedka Soomaaliyeed tan ma aha maalgashi diid laakiin waa in la helo maalgashi aan xaqdaro ku dhisneen cawaaqib xumo aan u keenaynin dadka iyo dalka sidoo kale walaalayaal haddaan Soomaalin nahay beer falashada ahmiyad weyn ah ma siino waana liidnaa taasna waa ayaan daro abwaano badan oo Soomaaliyeedna ay ka digeen sida abwaankii abwaan Maxamed Gacal Xaayo gabaygiisii beer hala ogaado tix kamid ah gabaygiisa waxay oranaysaa badda khayr ka soo degay indhuhu kuma bukaacaane wabiyo butaaca baldoos lagu la yaacaahe dadka booli kuma naaxo iyo baad la tuugsadaye barkin lagu dhareeriyo hurdaad boga taqaaniine waa baaba iyo hoog haddii badar la waayaahe beesa adag waxaa lagu helaa beeyada iyo fooxa bangiyada ma buuxeen hadday beeraley jirine waxa hadalka baaqiisu yahay beer ha la ogaado waa walaal